السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلامي أصحابتي دمانتين رير تلدي تلاذذا maanta waxaan rabaa inaan yara taabto gadaal shibir faaraxa gadaal maray shimbirta faarax baan bixiyo horta marka hore ha iloobina inaad maaragtay like subscribe iyo share ka noogu dhufataan insha Allah si aanan waxyaabaha aan soo bandhigayo ee idin dhaafin hadii la yiraahdo maanta muxuu ku saabsan yahay barnaamijkeena taada wuxuu ku saabsan yahay inaan iraahdo fadlan gaarsiiya qof walba oo gabar ah oo ama hooyo ah ama haweenka Soomaaliyeed meel kasta joogan gaarsiiya u gudbiya fariintan way ku socotaa anoo ka duulaya gabdhihii ninka saddexda gabdhood oo uu soo bandhigo yiri xaasaskaygu ee hal qol ayaga isla degan qolka kalena anaa degan dhahay waxa la yiri waxaas waaba fake bayba ahaayeenba marka ninkii akhbaartii uu soo gudbiyay waxa la yiri fake bayba ahaydba oo run ma ahayn laakiin xataa haday fake ahayd naxdin waxa ah in gabdhaheena Soomaaliyeed ay ogolaadaan ka raali noqdaan in sida intaas inta la eg loo bahdilo marka waxaan leeyahay walaashayda Soomaaliyeed gabadha walaashay ahay taan hawreerto ahay taan eedada ahay habaryar eedo midda waaridii ah midda anigu waaridku ahay midda aniga hooyo kala u noqon karo midda aniga aan walaalahan hoosimannahay you are beautiful waxaad tahay qof wanaagsan waxaad tahay qof qurux badan ilaahay bal eeg sidoo ku sameeyay dumarka bal eeg ilaahay qiimaha uu siiyay bal eeg diinteenu siday noo wanaajisay bal eeg maqaamka ay diinteenu na taagtay bal eeg ilaahay nimcada sidoo ku wanaajisay marka bal eeg ilaahay wuu na wanaajiyay ilaahay wuu na hagaajiyay dumarka Soomaaliyeed diinta sharaf iyo meeqaan bay noo yeeshay wayna wanaajisay in qalbigiina intuu hoos u dhaco oo maaragtay dameer kasta faras kasta la idinku kacsado waxa kaliya oo keeni kara waxa weeyaan idinka oo awoodiina wanaagiina sharaftiina qiimihiina intaba aanan xasuusan wax barta iskuula taga wax akhrista hadaadan xataa haysan dhaqaalaad ku baratid YouTube ka gal maskaxdaada kobci maskaxdaada kori kobci maankaaga maskaxdaada dhis ha u ogolaanin qof binu aadana nin iyo dumar mid ku noqdaba marka walaashay gabadhan eedadu ahay gabadha Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed qiimo leeyihiin xawataako qof Soomaali dumar ahayd araweelo aniga magaceega araweelo weeyade araweelo Soomaaliyeed bay ahayd dumar pilotkii ugu horeeyay ee dumar ah ee diyaarad ka isa Afrika Soomaaliyeed bay ahayd way joogtaa hadda way nooshahay way taagan tahay the first pilot diyaarad qof dumar oo ka isa Afrika ugu horeysay Soomaaliyeed bay ahayd ayeeyooyinkeen hooyooyinkeen ayeeyadii hooyadan ayeeyded ayeeyooyinkeen dumarkii sii dhalay baadiyaha joogi jiray hawsha inteeda badan korka ka saarnaan jirtay dumar adag sharaf iyo maamuus leh bay ahayn marka adoo ka soo jeeda hooyada gabadha Soomaaliyeed adoo ka soo jeeda dumar duntaas leh dun cajiiba ka soo jeeda hadaaba marba sheegato ani waxba igama gelin dhaanka iyo Soomaali hebel waxba igama gelin Soomaali hadaabad ku abtirsato afkaaga hadalkaaga luqadaada meel un haduu Soomaali ka soo galo oo dumar tahay walaal macaan hooyo macaan abaay macaan habrir macaan eed macaan qiimo leedahay qiimahaaga ha iloobin yaanan hoos loo dhigin qiimahaaga sharaftaada iyo wanaagaaga iyo duntaada yaanan hoos loo dhigin yaanan cidna kugu dhihin waa naceebase adiga iska fakarkow adiga inaadan ceeb isu ogolaanin weeyaan intaadan cid kale ka fakirin adiga sharaftaada inaad ilaashatid weeyaan it is all for you matter muhiim baad noo tahay
dumarka Soomaaliyeed qiimo leedihiin dad waxa soo baxa ayaantan idinka faa'iideysta oo hoos idin dhigaya mid afar la soo istaagay mid saddex la soo istaagay haday runta ay haday been tahayba see isugu ogolaatay habar macaan eed macaan adaan kula hadlaya waad qiimo badan tahay waad qurux badan tahay sharaf iyo maamuus baad leedahay dumar dun fiican baad ka soo jeedaa Soomaali hadaa tahayba Soomaaliyad sharaf itaada iyo maamuuskaaga ha ogolaan qofna inuu hoos u dhigo you are beautiful you matter muhiim baan noo tahay anaga meel kasta oo aan joogno haweenka Soomaaliyeed qofka dumarka ah ee Soomaaliyeed baadiye haday joogto iyo haday bari joogto iyo haday nugaal joogto iyo haday waqooyi joogto iyo haday muqdisho joogto iyo haday koonfur joogto kulligiin isku waxaa noo tihiin dumarkeeni gabdhaheeni waa idin jecelnahay weliga ha ogolaan qof inuu ku bahdilo marka gabadha Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed ayeeyada Soomaaliyeed ha ogolaanina in liidin bahdilo ha ogolaanina in sharaftiina hoos loo dhigo ha ogolaanina rating in laydin ku sameeysto ama like ama share laydin ku sameeysto ha ogolaanina diinta in laydin soo adeegsado ha ogolaanina waxaad u qalantaa sharafta ugu fiican waxaad u qalantaa meelad adigu leedahay waxaad u qalantaa meel qurux badan waxaad u qalantaa wax qurux badan waxaad u qalantaa meel sharaf leh waxaad u qalantaa wax adduunka ugu fiican you deserve all of that wax walbo wanaagsan wad u qalantaa you deserve it wad u qalantaaye ha ogolaanin meel ka hooseysta in lagu dhigo ha ogolaanin in lagu bahdilo we love you dumarka Soomaaliyeed meel kasto joogtiin waan idin jecelnahay ee gul iyo gobonimo gabadha Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed walaasha Soomaaliyeed tan habaryarta oo ahay tan eedada oo ahay mid aniga ila eg oo simanahay oo walaalahannahay mid waaridka ii ah tan waaridka oo ahay kulligiin hal xasuusta yaan anaga la iska qanqaniinsiin oo la iska kaay horkeenin tii xijaab wadato waxa leeyahay ha ma asturna tan jalbaabka wadata ka fiican tii jalbaabka wadata waxa leedahay ha xijaabka ma xirna tan waxay xiran tahay xijaab ay xiran tahay maradan xuna qoorta ugu duuban jalbaabka waa inaad soo xiratid tii xijaabka xirneed waxa leedahay mara weyn bay jiidaysaa walaal ama jalbaab sido ama qimaar sido ama madaxa ha ku qaawanaado waxaasoo dhan nama kala qaybin karto gabar hadaad tahay Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed hadaad qaawan tahay iyo hadaad xijaaban tahay iyo hadaad boqol dhar xiran tahay iyo hadaadan xirneen aniga dharkaaga waxba igama galin dumarnimadan wadaagnaa dumarnimada taas ha iloobina dumarnimadan wadaagnaaye marnaba ha iloobina la iskama kaay horkeeni karo aqliga yeesha aqligu ha shaqeeyo maanku ha shaqeeyo in rag lama kala dhex galo la iskamana hor keeno way isdifaacaan na idinku isdifaaca tii wax baratay yeesan hoos u dhigin tan wax baran tan wax baran tan wax baratay yeesan hoos u dhigin oo oranen meel walba ay taagan tahay tii hadasho cod kar ah tan kale yeesan oranen ha maxaa nimanka bar walba dhex taagay oo af dheer tahay tii aanan hadlin tan hadasho intay soo istaagtay yeesan dhihin waxba iskama celin karto oo waa taas aamusan mar walba waa la kala dabeecad duwan yahay waa la kala duwan yahay mid hadasha midaan hadlin mid wax baratay midaan wax baran mid 10 ilmood haysato midaan wax dhalin kulli dumarkaan wadaagnaa taas naga badan dumarnimadan wadaagnaa haween Soomaaliyeed baan nahay intaas nagu filan oo naga badan taas xasuusta na hays qaybinina xasuusta inta ugu dambeysana waxaan u dirayaa raggeena Soomaaliyeed aniga 6 nin ay la dhalatay alxamdulillah laba ninna waan dhalay alxamdulillah ilaahay siiye minna waa u dhaxaa samaaha marka aabahayna waa nool yahay alxamdulillah soo rag baan ku hayagaarsanahay walaalayaalow markaad aragtiin dumar istaakuleynaya oo dhahaya anigoo kala oranaya naad sida isku dhaama oo dhiirigelinaya dumarka hey dumarkii bay nagu diraysaa war adiga hadaa quman tahay yaa tarag yahow ay tilmaano dhaweeto caasho ilaahay qaarkiisi adigu hadaad quman tahay ma lagugu diri karo dumarka istoosi oo adigu nin quman iska dhig cid kugu diri karta male marka ha u arkinina dumarku haday isdiira galiyaan yeesan idinku qofulnaanin hey ubax araweelo waxay nagu diraysaa dumarkii maya walaalo isku kalsoono oo adigu is hagaaji
adigu haddaad tahay nin hagaagsan cidna cid kuguma diri karto marka waxaan doonayaa intaad hadalka badan iska daysiin raggeena Soomaaliyeedo doontaan way socotay soo fuula gabdhaha walaalihiin ah maalin walba way ila dhalatay waan dhalay wayna dhashay ma u baahnin soo raac baskan soo fuul haddaad ka dhacdidna cidna ku joojtin mayso marka taageer taakule la istaag walaashaada dhibaataysan oo dhibka kuwa wado dhibka ka daaya dumarka oo dhibka ka daaya hablahow anna waan idin dhiirigelinayaa sida isku dhaama maskaxdiinii aqligiinii maankiin ilaahay way idin sii ha shaqeeyo raggan idin ka dhigtay wadada iska qabta niyada dhista idinka isku mashquula adigu iskobci wax dhageyso maskaxda ku dhisa raadso gabar xoogaa ku dhaanto oo wax ka kororsato marka Soomaalinimo kaanan gabdhaheena taageereen kaanan taakuleyneen ee u taagan inuu ayaga meel walba soo fadeexeeyo kaas waa iska qabaneynaa sidii bisadoo kale halka inta ka qabanno baan saas u qabaneynaa waa iska dhexsaareynaa naakan wax kufsada iska soo saaro sheega kan gabar kufsada hadaa maqashin oo dawladda sii dayso intaad is aruursatiin idinku oo is abaabushin meel ku raadsatiin nasliga ka siiba nasliga iska celiya mindii qaata xabada qaata wallahi way gadab na gabdhow awood aad leedihiin garta wallahi wax idinka wanaagsan ma jiraan marka ninkii aanan idin taakuleyneen oo dumarka Soomaaliyeed u istaageen caawineen oo meelaha dockayeerka ah daanka jabiya uma baahnidina daanka jabiya dockayeer looma baahno gabdhahi waan wax la idinku diray male sida isu dhaama dumarkiina garab istaaga war gabdhihiina waa daaleen ee u soo istaaga wabillahi tawfiiq inta san ku ekeynaya